shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa abaalmarintii ay ugu tala gashay dhamaadka sanadkan 2016 oo afar gaari oo noocoodu yahay Mark Egas iyo 90 milyan oo Somaliland shilin ah ay macaamiisha gobolka Saaxil ugu soo bandhigtay goobaha ay ku kulmaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera. Goobahaasi oo lagu qabtay bakhtiyaar nasiib kooban oo ay tartan ugu galeen dadweynihii joogay. Maamulka shirkadda Somtel ee magaalada Berbera Jaamac Cabdilaahi Salamaan ayaa ka warbixiyay ujeedada bandhigan ay shirkadu u sameynayso. hadday tahay abaalmarino maalinla, hadday tahay abaalmarino bila iyo hadday tahay abaalmarino sanadlaaba, taasoo keentay in shirkadu ay yeelato macaamiil waaweyn ku yeelato gobolka Saaxil oo kala duwan oo markaa ay noqoto shirkadii bulshadu lahayd. shirkadda waxa loo yaqaan shirkadda ay bulshadu leedahay ee dadku leeyahay kan maanta loo socdo oo ah kii aynu imika soo bixinay ee ah abaalmarintii bakhtiyaar nasiibka ahayd iyo kan kale ee sanadlaha ee bisha December aynu qaban doono baabuurta iyo waxa kale oo badanna gobolku insha Allah qaybtiisa weyn buu ka qaadan doonaa. Madaxa suuqgeynta shirkadda Somtel Khadar Cabdiraxmaan ayaa isaguna goobtaasi ka sheegay in shirkadu ay dadweynaha wax ku soo celiso. waxa weeyaan abaalmarintii sanadka ugu qaalisanayd oo ah abaalmarinta sanadka iyo Somtel. abaalmarintan waa mid aan ugu talagalay inaanu macaamiisheeda ku celino qayb kamid ah faa'iidada. waa in gawaarida ugu dambeysay oo ah Mark Egas afar gaari bay shirkadda Somtel soo bandhigtay oo aan ugu talagalay macaamiisheeda oo ay kamid yihiin macaamiisha gobolka Saaxil ku nool. sidoo kale waxa ay shirkaddu maalin walba bixinaysaa lacag ah 190 milyan oo shilin taasoo maalin walba aanu bixino 1 milyan iyo 500 oo kun iyadoo ay guuleystaan maalin kasta 3 macaamiil oo ku guuleysta 1 milyan iyo 500 oo kun oo midkiiba ku guuleysta 500 oo kun oo sidaadii caadiga ahayd un baad simkaarka Somtel u isticmaalaysaa sidaadii caadiga ahayd un baad adeegyada e-dahab uu kamid yahay 4G uu kamid yahay 3G uu kamid yahay iyo dhammaan adeegyada shirkaddu ay bixiso taas baa shirkaduna abaalmarin idinku dartay oo abaalmarin la idinku siinaya haddii alla ka dhigo. mid kamid ah dadweynihii bakhtiyaar nasiibkaasi kaga qayb galay magaalada Berbera ayaa shirkadda Somtel uga mahad celiyay adeegyada ay u fuliyeen. Somtel 4G waan u baahnaa marka hore internet-kan ka isticmaali jiray kaarkayga oo mahadsantiin 100% Somtel halka hore uga sii socdo. Bandhigan ayaa lagu soo qabtay gobolada galbeedka haatanna waxay shirkaddu ku qaban doontaa gobolada bariga Soomaaliland. Cabdikariim Saciid Saalax, Home Cable TV, Berbera.